raggaani haddaysan isku soo sawir lahayn diyaaraddaani oo astaan u halaasacnood way adkaan lahayd in la aamino ama waxa la odhan lahaaba waa muuqaalo lagu soo duubo meel ka baxsan rankaasi hadda diyaaraddaani ay ku dul taagan yihiin qoraal ku dul qoran waxaa kasoo dhex muuqday magacii fardhiya sidoo kale muuqaalkan labaad hadda idiin muuqda oo ahaba isla diyaaraddaani isagana waxaa ka dul muuqda diyaaraddaani qoraalada kasoo muuqday muuqaalka ay soo gudbiyeen raggaasi afku u duuban yahay waanu ku sugannahay mid ka mid ah fadhiisimada maamulka walaayada islaamiga ah ee xarakada al-shabaab ee ay ku leeyihiin duleedka laascaanood marka horgalka adiga ku xiga haddaadan kaga bilaaban oo aadan ka suulin dadka kaa kale soo gaaraysaa horta sanado badan waa ka furinay dhaqaale badan baan ku bixinay in laascaanood laga qabto si dhuumashaa saa ognahay sheekha wuxuu saameyn ku leeyahay gudaha Soomaaliland marka waxaa loogu talagalay in la yiraahdo sheekha ugu weyn ee Soomaaliland ayaa ka hor yimid ictiraafka Israa'iil ama la iska hor keenay shacabka iyo Sheekh Mustafa gobolka awdal waxa weeyaan waa reer soo duulay oo Itoobiya ka yimid iyo dad degaankooda difaacanay markii laga soo kiciyay Itoobiya ee canfar iyo Oromo ay soo eryadeen ayay rabaan inay degaanada soo galaan ay degaan Itoobiya jooga gobolka awdal in adeerow nalama yeelan karo annaga hadda idin sheegayna idigu laakiin waxaad aaminsantiin aragti ah ciise dhul ma kala laha in adeero annagu hadda dhul baa kala leedahay bismillaah saaxiib yeel ku soo dhawaada mudal furan aniguna waliibaan maxamed aadan aan ku bilaabay mawduucan caaway qolyihii kaarka ummadda Soomaaliyeed xoqon jirtay marna xoqon jirta kaarka diimeed saacadii ugu dambeysay waxay la yaacayeen cod si qarsoodi ah ama uu Soomaali ka ahayn ba laga soo duubay Sheekh Mustafa khudbadiisa Jimcaha shalay khudbadiisana Sheekh Mustafa wuxuu ku soo qaatay arrinta Falastiiniyiinta iyo arrinta kale u dhaxaysa Muqdisho iyo Hargeysa isagoo sheegay Sheekh Mustafa laga soo bilaabo 60kii ilaa hadda inay wado Soomaaliya dulmi waliba dulmiga ugu badan ay wadaan kuwa ku dhawaaqa midnimada qolyahan ummadda Soomaaliyeed waxay soo jarjareen codkii sheekha waxayna ka soo qaateen intii ay ka doonayeen nefiska wadaadkuna uga hadlay arrinta Falastiiniyiinta in sheekha codkiisa qaybna laga tago qaybna la soo qaato waxay soo hosgelaysaa dulmiga sheegay sheekha inay wadaan kuwa ku dhawaaqa midnimada kaarka ummadda Soomaaliyeedna xoqda soo wada qaada codka sheekha ama iska badaaba inta wixii u dhaxeeya waa munaafaqad habeen dhaweyto Fahad Yaasin ka hadlay xamar wuxuu sheegay xiriirka u dhaxeeya wadamada Carabeed iyo Israa'iil inuu ku ogyahay dawladaha Soomaaliland ba waa la mid xiriirkeeda wuxuu ku ekaan doonaa labada dawladood midda kale Sheekh Mustafa madaxweyne ma ahan wasiirna ma ahan wuxuu ka mid yahay culimada Soomaaliland arrintan Falastiiniyiintana aragtidiisa ayuu uga hadlay mana qusayso diinta islaamka marka laga yimaado ummadda islaamka qadiyadana Falastiiniyiinta waa qadiyad Carabeed waxay la mid tahay qadiyada u dhaxaysa Soomaalida iyo wadamada Itoobiya iyo Kenya oo xoog ku haysta dhul Soomaaliyeed oo ka weyn kana nacfi badan dhulka Falastiiniyiinta wadaadka Soomaaliga hadda u doodaya qadiyada Falastiiniyiinta waxa kaga xaq badan oo af iyo dhaqan iyo diinba wadaagaan carruurta iyo hooyada ku nool Jigjiga iyo Gaarisa Falastiiniyiintu 100% muslim ma aha laakiin Soomaalida meel kasta ay joogaan waa ummad muslim ah maanta dhawaa hadda shirkii wadamada Carabta waxa dhex fadhisay gabar ka soo jeeda Falastiin madaxuna u banaan yahay waxaana dhex fadhisay wadamada Islaamka sida hadda loo siyaasadeeyay khudbadda Sheekh Mustafa ayaa loo siyaasadeeyay qadiyada Falastiiniyiinta iyo qadiyada Soomaaliland matalan ba hadda khudbadiisana Sheekh Mustafa sida qarsoodiga looga duubay isagoo raali aan ka ahayn waxa laga jaray ama waxa la qariyay qaybta kaga hadlay systemka Soomaaliya iyo rejiimkiisa aad bare kaliya waxa laga soo qaatay khudbadaasi qaybtii yareed uu kaga hadlay arrinta Falastiiniyiintana wadaadka ama Sheekh Mustafa wuxuu tusaale u soo qaatay dhibaatadii rejiimkiisa aad bare u geystay shacabka Soomaaliland gaar ahaan beesha Isaaq isagoo yiri Sheekh Mustafa ka warama barigaad ka qaxday magaalooyinkiina hadii la soo dejin lahaa ummad kale maxaa dareemi lahayd taana xagga Allah isagu qorneen waqtigaasi siyaasad bare uu isku dayay ficilkeena uu sameeyay inuu ka dhaxla wareejiyay beesha Isaaq dhulkooda isagoo soo dejiyay siyaasad bare dhulka beesha Isaaq qaxooti meel kale uu ka keenay isagoo ujeedkiisu ahaa qaxootigaasi inuu ku deegaamayo dhulka beelaha Isaaq waliba siyaasad bare qaxootigaasi uu hubiyay ciidankiisa ayna ka barbar dagaalamayeen marka maxay tahay farqiga u dhaxeeya siyaasad bare iyo Netanyahu Falastiiniyiintu waxay dhibano u yihiin Netanyahu iyo systemka Israa'iil halka reer Soomaaliland ay dhibano u yihiin siyaasad bare iyo systemka Soomaaliya haddii diyaarado lagu garaacay Falastiiniyiinta Soomaaliland shacabkeedana waxa lagu garaacay diyaaradahaasi intaana kasii gudbin qodobkani waxaan arkay dhalinyaro badan oo qoraallo ama hadallo munaasab ah ka soo gudbinaya Sheekh Mustafa sheekhuna ma jirto meel uu kaga hor yimid aqoonsiga Soomaaliland
keliya fariintiisa wuxuu ku socota shacabka gaar ahaan intii ku sugneed masaajidka khudbadan uu ka jeediyey ee shiiqa hadalkan laga faafiyana si qarsoodi ayaa looga duubay mana aysan ahayn hadal uu yiri kaale iga duuba hal i arkee sidaan soo sheegana mawduuca khudbadiisana shiiqa waxay ahayd arrinta falastiiniyiinta iyo arrintan kale u dhexaysa muqdisho iyo hargeysa waase la siyaasadeeyey hadalka sheekh mustafe jihada ku socota maahane jiha kale ayaa loo dhigay masaajidoo dhan ayaa looga duceeyaa falastiiniyiinta shalay ugu dambeysay masaajidka xaafadda iyada ku yaala ayaa looga duceynayay marka hadda waxaa loo soo qaatay loona faafiyey hadalkaani sheekh mustafe saan ognahaba sheekha wuxuu saameyn ku leeyahay gudaha somalilan marka waxaa loogu talagalay in la yidhaahdo shiiqii ugu weynaa somalilan ayaa ka hor yimid ictiraafka israel ama laska horkeenaba shacabka iyo sheekh mustafe marka fahama shaxda munaafaqada qodobkan aan kasii gudbo 24 saac ugu dambeeyay social media waxa ku faafay muuqaalo ay ka soo dhex muuqdeen koox ragga afkan u duuban yahay oo sheegtay inay joogaan laasacanood muuqaalka ay soo bandhigeenna waxaa ka soo muuqday diyaaradii tiilay duleedka laasacanood iyo gudaha magaaladaasi raggan waxay sheegteen inay dagaal la geli doonaan Puntland iyo Somaliland ayna fulin doonaan amar ka soo baxay kooxda ay sheegteen magacooda ee al-shabaab waana arrin kale khatartada leh khatartana kuma koobna deegaankaasi waxay saameynaysaa guud ahaanba gobolka gaar ahaan Ethiopia Somaliland xitaa waxay saameynaysaa qolyahan maamulka ee Puntland raggan haddaysan isku soo sawir lahayn diyaaradani oo astaan u halaasacnood way adkaan lahayd in la aamino ama waxa la oran lahaaba waa muuqaalo lagu soo duubo meel ka baxsan rankaasi hadda diyaaradani ay ku dul taagan yihiin qoraal ku dul qoran waxa ka soo dhex muuqday magacii fardhiya sidoo kale muuqaalkan labaad hadda idiin muuqdo oo ahba isla diyaaradani isagana waxa ka dul muuqdo diyaaradani qoraalada ka soo muuqday muuqaalka ay soo gudbiyeen raggaasi afku u duuban yahay maanta oo ay taariikhda hijrigu tahay 4 Shabcaan 1447 oo aanu ku sugannahay mid ka mid ah fariisimada maamulka walaayada islaamiga ah ee xarakada al-shabaab ee ay ku leeyihiin duleedka laascaanood su-aasha marka waxay tahay raggaani kooxda ay sheegteen magacooda deegaankaasi ma joogaan dabcan haa 2009 deegaankaasi markay ay galeysay Somaliland way joogeen markay ka soo baxaysay 2023 way joogeen magaaladaas laascaanood maalintii waxa maamuli jirtay Somaliland habeenkii ayaga maamuli jiray waana kooxda leen jirtay hal doorka dhulbahante ee aaminsanaa Somaliland su-aasha labaad marka waxay tahay wixii ka dambeeyay bixitaanka Somaliland deegaankaasi ma ka dhaceen dilal qorsheysan dabcan haa waxaana ka mid ah rag la dilay sargaalka Etoobiyaanka ahaa ee fadhiyay safaaradda ama qonsuliyadda Etoobiya ku leedahay maamulka Puntland gaar ahaan magaalada Garowe mudan shabaab nin la yiraahdo Sirjiisa jiro oo mahad ilma adeer laxmi labadu aab isla dhasheen 5 milyan dusha ka saaran ninkaas Sirjiis waa ninka ugu hadlaynsan ugu adadag madaxa jamhaadka ama ciidamada al-shabaab u ahay ayaan dhaxaas waxay u bedeleen laascaanood iyo dhinaca waxaan sameeyay barnaamij oo focuskan ku saarano dadkii deegaankan cadow u shaqeyn jiray intaada ninka Hargeysa Burco u dhashay aadan gaarin waxa ka soo horeeyay kuwa reer waqooyi bari ka soo horeeyay marka horgalka adiga ku xiga hadaadan kaga bilaaban oo aadan ka suulin dadka ka kale soo gaaraysan horta sanado badan waa ka fulinay dhaqaale badan baan ku bixinay in laascaanood laga qabto si dhuumasha marar badan way noo suurtagal weeyday oo caqabada amni baa jiray dhalinyaradii hadda kacdoonka bilowday oo kale majority isku tiim baan ahayn oo shaqeyn jirnay waxadkii deegaankan aniga igala shaqeynayay ugu dambeyntina ku saafbeera mawduucan caawi Xamse Cabdi Bare ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo maanta ka hadlay munaasabada ay ku qalin bedelayeen arday wuxuu ka sheegay munaasabadaasi systemka federaalka Soomaaliya qaadatay dhibaato mooyaane inaysan waxba ka faa'iidin midna ogow systemkaasi markii horeba wuxuu sameeyay reer Soomaaliya inay ku wiiqaan jiritaanka Somaliland ayagiisi reer Soomaaliya ayaa ku soo wiiqmay oo maanta intii wada joogtay ee isla ogolaad calanka buluuga ayaa si kala tagaysa waana nuxurka hadalka Xamse Cabdi Bare 22 sano waxaynu practice garaynaynaa nidaamkeenu xukunka ay federalism federation wuxuu inaga sii kala kaxeeyay mooyee wuxuu inoo tara waa weyn waa la'anahay wax weyn dabcan wuxuu waa qabtay laakiin haddana dawladnimo waa inoo dhisilaayay saan rabnay nidaamkan federaalka qorshihiisa waxa la qolyahan majaarteena ama Puntlandba hirgelintiisana waxa la Xasan Sheekh oo inta badan sameeyaba maamulada hadda ay ka cabanayaan waxana ugu dambeeyay maamulada uu sameeyay Xasan Sheekh kii barankiga ay ka sameeyeen Soomaaliya maamulkaasi marka laga yimaado inuu soo ka shaqeeyeen gudaha xuduudda Somaliland haddana hadalkan Xamse wuxuu qiraal u yahay inaysan wax maamul aysan ka sameyn deegaankaasi haddana ay ku joogaan dhabihii meesha ay ugu saari lahaayeen
maamulada faraha badan ee ka jira gudaha Soomaaliya awoodna lagu soo koobi lahaa magaalada Muqdisho. Aragtidaasna waa aragtida siyaasiyiinta beesha Hawiye haddana ay isku hayaan siyaasiyiinta kale ka soo horjeeda ee beesha Daarood. Geesta kale madaxa waxaa iskula jira laba kooxood oo markii hore ay soo abaabuleen Xasan Sheikh iyo maamulkiisa. Kooxi waxay ahayd kooxdii Awdal State ee u badneed qurbo joogta beesha Samaroon. Kooxna waa kooxdii maalin ka hor ay soo abaabuleen Xasan Sheikh iyo geelaha Jabuuti xamarna kaga dhawaaqay waxay ku sheegeen Guban State inta la gaarinba Somaliland. Labadaas kooxoodba waxay ka dhex bilaabeen ama waxay ka dhex qaraxdaba gudaha maamulka Xasan Sheikh. يا إسلام ميلها كهذا شو ولي قال بسورين سيلع يلا هيا أنا نركن كم قاعدنا يا ورا ماشى كشجان شلي ماشى وح كده عذي وح ليراهن ديسمبر قانو حد بان كسر رياضين وح كلا ماشى يلا ما تجرو دول ننكي سبا إسكاله دولكم مجورو لكن قف كسعته كوي مدا إسكاب بحوز إسكتجا قبل كعود الوحى ويا ورير سود دولا إثيوبيا كيمد يد دجان كوج الدفاع عناي مركي لقى سوق إثيوبيا عن فريق أرما يسوي يدين أي ربعين الدجان ده سوق جلان الدجان وحنا إسكاب بنا يد الدجان كلها عيسى حدين نقطة أفرتن إيه سجال سنة جرتاج بوستي والله عفر بلودي بأي بالله طلع عيسى إيه أنا قلنا ونطلع على منا وإني هيا قماش ونجيان وادينا tan waa lagu dhimanaya lagu kala tagayaanayo ciise Itoobiya jooga gobolka awdal in adeerow nalama yeelan karo annaga hadda idin sheegayna idigu laakiin waxaad aaminsantiin aragti ah ciise dhul ma kala laha in adeerow annagu hadda dhul baa kala leeyahay geerbuus markuu yahay dhulka waa kala leeyahay marka idigu haddaynu kala lahayn idinku xaggaad wada leeyihiin baad wada tegi doontaan laakiin ciisaha nala jooga inta percentage uu yahay laakiin ninka nooga imanaya wadan kale in adeerow kaas xaq naguma laha soo degi maayo cagaha soo dhaqana soo dhigi maayo ka aqbali mayno kaas waa qodob ka hay midnimada difaacaysi ma iyadii baa waxay rabtaa in dadkii awdal ay qaybiso in iyadii baa imika qaybsan oo wadankii baa kala qaybsan waxay rabtaa iyaduna inay haddana barkii midayn lahaa sii qaybisay diyaar u tahay dowladda federaalka waayo taa waxa caddayn u noqonaysaa wasiirka gaashaandhig wuxuu qorayaa caddayn bay tahay walaalayaal maaha in yaro sidoo kale baraha bulshada wax ku qoro maaha wax saanad buu leeyahay wax kasta ma qori karo qofkan markaan waxa arko anigoo reer awdala Soomaalinimadu reerna ugama daba fadhiyo anigu reerna mas'uul igama ah Soomaalinimada reerna identity ugama rabo inay caddeeyaan inaan qof Soomaali ah